السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاتو عنا wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada channelka Farxaan Academy. maanta waxaan qaadan doonaa 6 kalmadood oo markaa ka caawin doona inaad sare u qaadid luqadda Ingiriiska. Hadaba saaxiibayaal intaan casharkeena gudbin waxaan ka codsanayaa inaad channelkan kusoo biirtaan oo subscribe soo dhahdaan insha Allah. hadaba saaxiibayaal kusoo dhawaada casharkeena maanta. shalay sidaad ahayd waa inaad isku daydaa cibaado ahaan, cilmi ahaan, aqoon ahaan, dhaqaale ahaan, dadnimo ahaan, akhlaaq ahaan inaad ka kortid. casharkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa insha Allah 5 kalmadood oo ah who, where, when, why iyo what. hadaba kalmadda hore soo qaadanaya waxa weeye what. What is your father's name? What is your father's name? waa maxay magaca aabaha? What's your father's name? waa maxay magaca aabaha? kalmadda labaad waxa weeye when. When are you coming here? When are you coming here? goormaad halkan timi? When are you coming here? goormaad halkan timi? kalmadda saddexaad saaxiibayaal waxa weeye where. Where is my English book? Where is my English book? Meye Englishkaygi buugayga English? Where is my English book? Meye buugayga English? kalmadda afraad waxa weeye why. Why are you late today? Why are you late today? maxaad maanta u habsaantay? Why are you late today? sabab ma ayaad maanta u habsaantay? Why are you late today? sabab ma ayaad maanta u habsaantay? kalmadda shanaad ee ugu dambaysa waxa weeye who's your favorite teacher? Who is your favorite teacher? waa kuma macalinkaad xiisayso? Who is your favorite teacher? waa kuma macalinka aad xiisayso? haddaba 5 kalmadood waxaa loo wada isticmaalaa su'aal oo markaa what waxa weeye maxay, when waa goormo oo markaa xilliga ayaa loo isticmaalaa, where waxaa loo isticmaalaa placeska ama xigee markaad leedahay ayaad isticmaalaysaa, why-na waa sabab oo markaa sababaha loo isticmaalaa, who-na waxaa loo isticmaalaa markaa qofka bini'aadanka ay inta badan loo isticmaalo who oo markaa waa kala doorasho. haddaba saaxiibayaal intaas ayaynu casharkeena maanta kusoo koobayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.